السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعد برساق فرح كسو دوادا قوشا يضبع عضها أي أباهنتهاي قوشو ووح آذو قبلارن إري قرى قوشو واكامينا دالينتا دمان ريوين كاغا واكو قوليسيغا هذا في ذادا وانا ودادا كوهو قام سفر حدا قوشو ما هو وحكو تسمادا بلي لبطونا سببتوه ووح آذو قاليا وحاني أباهنتهاي دادال آذو بدن يشقادك balse waxa laga yaabaa in adigoo sameynaya dadaal aad u badan inaad kaga tagto meel dhaxda inaad rijo dhigto ama si aad la diris noqoto niyad jab dhammaan waxyaabani waa wax kugu dhici kara haddii aanad lahayn dabeecadaha iyo hab dhaqanka ay leeyihiin dadka guuleysta maadaama guushu tahay wax khaas ah wuxuun baa gaara dad khaas ah balse ha warwarin sifooyinka ay u baahan tahay guushu waa sifooyin aad baran karto xataa hadday dabeecadaha yihiin qaar aad uga fog sifooyinka guusha wadada guusha waxa maraha qura dadka xoog u leenay u adkeystaan caqabadaheeda wadadan waxa ka buuxa diidma laga la hor yimaado niyad jab xanuun qoomamo guuldaro iyo xataa murugo guuldarada si aad u gaadho wadadan dhamaadkeeda waa inaad noqoto qof u dhool cadeeyo guuldarada waa inaad u tixgelisaa inay kamid tahay nolol maalmeedka caadiga waa inaanad argagixin oo aanad ooyin marka ay kula soo daristo guuldaro balse waa inaad u dhool cadeysaa sina wada socdaalkaaga diidmadu waa inay noqotaa saaxiib kugu dhow waxa diidmo kala kulmi kartaa saaxiibada qofka aad u shaqeyso dadka ama xataa adduunka oo dhan waa inaad adkaysi u yeelataa diidmo kasta oo aad la kulanto aanad noqotaa mid u dhool cadeeyo sina wada socdaalkiisa niyad jabku waa inuu noqdaa saaxiib kale oo aad ku xisaabtanto haddii aad tahay qof hansare leh niyad jabku wuxuu ku soo booqan doonaa in ka badan inta uu booqdo dadka kale guushu waxay u baahan tahay qof adkaysi u leh inuu ka gudbo niyad jab kasta oo soo waajaha dib u heegan galiye ciidankiisa diyaarsada agabkiisa bedel xeeladiisa horena u socda inta waxa dheer in qofka guuleystay ay ka qaado mas'uuliyadiisa qofka guuleysta ma ha ka yiraahdo waan guul dareystay isagoo aanay nasiibkiisa duruufaha iyo deegaanka ku xeeran balse waa qof aaminsan Ilaahay ku kalsoon naftiisa kalsooni buuxdana ka haysta in mustaqbalkiisu ku jira gacmihiisa gunta iyo gunaanadka haddaynu erayo ku soo koobno guushu waxay u baahan tahay qof u dhoolaaday dareenada xunxun ee uu waajihi doono isla markaana aan u tixgelin masiibo ku absatay balse uu tixgeliyo dhacdooyin kamida nolol maalmeedka caadiga haddii muuqaalkani ku caawiyo like saar haddii aad ku cusub tahay channelkan oo aan hubeyno faa'iido badan ku leeyahay subscribe fikirkaagana noogu soo gudbi qaybta commentiga bye bye